kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta sharafta leh meel walba ku sugan tihiin oo walaalkiin Carafaad Cabduqaadir iyo FPP Athlete soo dhawaada dadkii hore dadka cusubna waxaan leeyahay soo dhawaada isgaabiya channelku waa channelkiini maanta videogan waxaan ku cabiri doonaa arrin mucjiso leh waxaan ku cabiri doonaa insha Allah qisadii dhalashadeeda ee mucjisada ahayd in badan waan isdhahay soo bandhig laakiin ma qadarnayn maanta ay qadarnaatay insha Allah ilaahayna ii waafajiyay inaan soo bandhigo haddaba qisadan waa qiso markaad maqashid dhagaha ku taagmi doonaan indhahana banaanka ku imaan doonaan laakiin isgaabi ha degdegin sheedaan baa degdego soo markaa oo ku faahfaahin doonaa insha Allah waan ku fahamsiin doonaa qaabka ay ku dhacday sida caadiga waxaan ogsoonahay qofka bini aadanka inuu ku dhashto 9 bilood 8 bilood 7 bilood ama iyo barbarba ka dhiga baxata 7 bilood iyo 8 bilood iyo 9 bilood sida caadiga oo anaga aan ogsoonahay cilmiyan iyo dadka badan bay ku dhashtaan sida normalka haddaba qisadeedu way ka duwan tahay waxaan caloosha hooyaday ku jiray 18 bilood 18 bilood waa 9 bilood lagu daray 9 bilood 18 bilood ayaan caloosha hooyaday ku jiray hooyana intaas caloosha ayay ugu haysay in badan oo dadka kamid ah ehelkayga ha ahaadaan dhaqaatiirta waxay lahaayeen wiilkan ma dhalanayo wiilkan caloosha ku dhex dhimanaa wiilkan ma dhalaysid wiil kala dhimanaa dhalaysaa wiil ma aysan dhalin laakiin qof anu kala dhimanaa dhalaysaa alxamdulilah ilaahay ima kala dhimin anoo nabad qabaa dhashtay hooyadiina maxay uga jawaabi weysay canugan waan dhali doonaa ifka wuu imaanaa insha Allah ilaahayna wuu qadaray hooyana wuu waafajiyay alxamdulilah ilaahay ka sokow waxa sabab u ahay oo ilaahay uu waafajiyay hooyaday oo ku madax adeegtay canugan inay dhalayso hooyaday oo ku madax adeegtay one day ina ifkan imaanayo hooyaday oo ku adkaysatay go'aankeeduna oo noqday canugan waan dhalayaa insha Allah ilaahayna wuu suuro galiyay ilaahayna wuu aqbalay alxamdulilah anoo nabad qabo kala dhimanayn ayaana dhashtay alxamdulilah hal mucjiso kaliya ayaan la dhashay oo ahayd cajirka inuu u jeexnaa adee meel taa ka camal ah inuu cajirka jeexnahay labada muruq is saarana la arki karay kadibna yacni caadi usoo daboolmay waxaan ku ogaadaa taas anigoo weyn ayaan taabtay cajirka cajirkan waa jeexan yahay hooyaan wacay hooy maxaa ku dhacay yaraanteedii ma waxay iga gaareen markaasay igu jawaabto hooyaday may waxba kaama gaarin laakiin waa ku dhalatay sidaas cajirkaada ayaa jeexnay qisadeeda dhalashada iga sheekaysay in badan oo ehelkayga kamidana way la socdaan qisada dhalashadeeda oo in badan oo kale taan weydiiyay oo dhaheen sidaas wax u dhaceen qof walba saxaabtida marka uu sheekayna wuxuu dhahaa macquul ma ahan waxay ugula kaftabaan markaas 7 arwaax 7 naf la tahay 2 qof oo nool tahay kubadda markaan dheelin oo kale markay daalaan aniga soo socda waxay taagan hal qof aan anaga halka qof wuu daalay adi halka qofood oo labaad nala dheelooyo soo marka kaftan fara badan ay igula kaftamaan dhalinyarada laga yaabo idinkan inaad ka falceli doontiin inaad u arki doontiin yacni magacina ay bixisiin xataa laga yaabaa ma fahanteen marka waa idinku qaadana wax walba bixisiin qisadan waa part 1 part 2 sida hadda shacabku ugu soo falceliyaan iyo insha Allah su'aalaha aan meesha ku soo qortiin waxay idinka jaahil bixin doona hooyo insha Allah waan idin soo fariisi doona channelka yani si live laakiin waa idin wici doona insha Allah soo la socdo marka part 2 aan oo balan insha Allah video xigo inta ku kulmi doono asxaabtu sharafta leh waxaan leeyahay nabad iyo barwaaqo ayaan idin rajeynaa insha Allah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. part 2 ayaan oo balan insha Allah soon.